noloshii dadka waa meeshay ku xidheen waa laga xidhay 2007 sidii looga xidhay ujeedadu waxay ahayd sidii uu ninkii wariyaha sheegayay in dadku gaajooda waxay jibada ku caawiyaan waayaan marka barkadu ha qallasho sida ilulimada ama kalluunku ugu baktiya meesha cagsi bay noqotay xooluhu way u bateen dadkii way u qaaliyoobeen neefneefka lasoo dhumiya Soomaaliya soo gala xoolo badan u gooyaa iyo lacag badan xoolo ariga u qalaan jihada geelay u qalaan sidii bay u bixiyaan way u barakoobeen waxaa la dareemayaa inay ka kaaftoomeen raashinka dhulkii sanaa xuduudaha laga xidhay wax isu bedelay ma jiro xagga dadka mooralkooda iyo dhaqaalahooda waxay rag jabhad aaminsan inay jabhadu jihaad ku jirto oo ilaahay caawinayo xoolaha loo tarmiyey oo loo barakeeyey saasay qabaan dad badan marka nolosheeda waxay xidhan tahay wariyaasha iyo saxafiyiinta iyo diblomaasiyiinta ka yimaada Addis Ababa iyo dalalka deriska iyo hay'adaha samafalka sidii ay u xidhay in la isdiibay doonayaan laakiin arrintaasi ma dhow xagga siyaasadda haddaan u leexan kelmadda siyaasadda liyaado iyo nolosha siyaasiga waddankeena lagama yaqaan laba nin baa ku loobtama nin naftuuro yidhaahda berri baa jigjeeg qabsan iyo askariga Ethiopia yidhaahda berri baan oolof soo afjari labada nin baa ku hardamiyeen doorasho kama dhacdo urur shaqaale male urur dhalinyaro male xisbi male urur bulsho male shirkado male wax shiri kara male idaacado male joornaalo male wax nolol siyaasadeed waddankeena ka jirta ma jirto waxaa ku hardamo naftuuro oo alafa iyo askari Ethiopian anaa soo afjari iyo anigaa soo afjari intaan baa soo hayaa حاجة هالكي كاتان لهنا يتقالوا من أن تبغي سيدنا مقدش واعيا يا وحوي حبس إثيوبيا نبدأ بتشري واللي سود هاي ما إثيوبيا نيكورن من شكل جسم وحوي ما ضلكاس وحلاقيش عليها بانتا هي وسخنا هي وحوي يديك ضلك صدق على موضوع الزواج إثيوبيا لقيش عليها marka guryaha madaxooda waa wasaqin weligeena nin madax Ethiopian oo rusheeyay wajin waxaan ka soo wadaa dagaalka inaga Ethiopian oo dhaxay markii uu bilowday 94 wasiirkii gaashaandhigga hadda macaalo si abraaliya waa garanaysaa wuxuu yiri 60 days baa ku soo afjari doona in yar oo oona laf la yiraahdo oo wadaad waalana wato oo ururka itixaadka gacan saar la leh ee xaj jira yaa door ka gashay 60 days baa ku soo afjaray شوف جرايد قاطع السواء هذا السلطان وكلام بضبع في ديبل كده وصلنا كل اسم ملسنا يو مسؤولين تقبل كجوجي وجوجي يو وحياس وحبي جيران حتى ما فهم بدنا بنت ولا يركب الدرس هذا بين بنت معي المامادي حسوس بدل الله وحيكون عليا ما هالأمور بدل ما لحق الشيء وحيكون عليان صدق بلاد مصاف جرين سجاشن يا أفرتي سجاشن يا شنتي سجاشن يا لهدي سنة كيف أفرتي يا شنتي بيقول لي صدق بلاد مصاف جرين صدق بلاد مصاف جرين صدق بلاد مصاف جرين مركب ورلا تابع حسمله من السكول كيف يدري بيسين سام ولا سوى سام مصاف جرين دونا صدق بلاد يوم دنتي هل كان كاسو هل كان شعبية مركب أمانة في الأساسية مجتهد أساسي إن جبر وكذا قاطع وويل كذا قاطع وبرلين كذا قاطع وسوق مجال كذا قاطع وأقوياء كذا قاطع وضد كاسي أي هنتي الله كذا قالما كم كان كذب ولا الله إنك كلام كذا ما كم كان إنك أنت سيف عم بيروش عبيودي لجمانا في الشقة إن هدف كذا قاعد مويا إن تبون نقطة حتى تقالد تنبي ما أنت مرة عن قرض اللي بيها حبيبي هذا ميل قرعانه يبدأ وده حسن شارك دام باكر دعوة قاري بيدا قاعد ملوك يسراكيل بدل ما يا هلا كذا ما تي وين بدل اللي جوك كلو عبد الرحمن عطيشة جوك كلو تقال باكر أحمر يا كل أحمري ماشي أنا خسارة بدل ما قال لكن ترى ما قالوا لنا إلا يو سجلي إنك كذا ما تبغى في الحياة سلاسل وصلنا لا ماشي برعانة هي هالك ماشي كان يسكون هاي النور كفر حية ماشي دقال كذا مركب سداس وصل عندنا إن شاء الله سجال كي خيرود عيدة كحرية وهذه سيدة فلتمية ومركب حدودها الصومالية دقال بدنا غير قاضي
oo iyo Mariyana annaga taagtiga dagaalka waxbaan ka bedelay dagaalku inuu dheeraado kacdoonka Itoobiya gudaheeda laga filayaan aan la sugno isbedelada jamhuuriyadda Soomaaliya iyo duruufaha lagu xeeran la jaan qaado sidaas uu rakiban yahay waxaan loo qorshaysan Itoobiya muddo sanad gudahooda in afka dhulka loo geliyo